in dalkeenna horumarkiisa iyo dibdhiskiisa iyo dimuqraadiyadda curdinka intaba inaynu adkayno waxaan soo jeedin lahaa waayo hadee jeer haddii meel la isugu yimaado oo aan wax la taaban kara aan la samayn waxa weeye inaynu maanta safaaraddii u horreysay inaynu isku dayno inaynu waddankan UK magaalada London inaynu ka furano waanaynu samayn karaynaa mashruuca oo runtii soo diyaarinay annaguna jecelnahay in intuu madaxweynuhu joogo arrinka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo ambassadorka iyo culimadeena iyo odayadeena inagoo la kaashanayna haddaynu isku tagno waynu samayn karaynaa inaynu office ku yeelanno meel aynu aqoonteena ku ururno meel aynu dalkeenna dibdhiskiisa iyo horumarkiisa aynu ka dhisno waynu samayn karaynaa ummaduna haddii aanay lahayn baro iyo meel ay ku kulmaan oo ku tashadaan waxa weeye 20 sanaynu marayna waxaan filayaa inaynu qaangaadhnay inaynu yeelanno safaarad calankeenu ka lusho oo safiirkeenna iyo maanta waftiga aynoo yimiba haddaynu maanta leenahay meel ay ku degaan oo shaqadooda ku fushadaan oo dadkeennu kula kulmo oo talo lagu siiyo baynu yeelanay anigoo